faado ibraahim waxa umaysan reebanin beeshii hor awal beeshii muxuu ahaa xisbi kulmiye musabixi ehelkiisa kabeela dumarta horta maamadu waa reer magaan maalin mataqaana waxa ka iyadoo marna calankii wadani wadato mar calanka mataqaana ay kulmiye wadato mar mid ka wadato mar mid soo qaadanaysa oo cid kasta oo dabaaldiisu la dabaaldegaysa maantana waxa way guusha wadani ay gaareen bi qayb ka tahay waxayna mataqaana ay ku tuftay caawa reer kulmiye waxa maysan reebaan waliba runta u sheegtay kutufitaan ma runta u sheegtay waxay tiri xilliga siiraaya uu joogay idinka gudoomiye ka ahaa mataqaana xisbiga kulmiye waa talada qayb ka ahaydeen xilliga uu joogay muusana idinkaaba meesha haystayba haddii dadkan hadday baash ku cusub yihiin u kaadiya qaylida iyo cabaadka waxaan aad wadaan maanta lagu dhawaaqay caabaan mataqaana mucaad noqotay kulligii oo calankii Soomaaliya soo wada saarateen halka iyo Muqdisho yaa wada socotaan dad badan baa mataqaana yaa shadadii xirtay oo bixi rababa socdaba oo Soomaaliya dhaafayo marka wixii meeka hore qaranka la sheegay ma wuxuu ahaa inta saldanada ay aad hayseen mise wax kala jira oo waxyaalaha la yaab kale way cirro hadda lagu dhawaaqay maanta wada weydeen hadduu talada mataqaana qabanaya 13 bish soo socoto December yaa mataqaana la dhaarin doona oo kursiga uu la wareegi doona inta ka horeyso waa iska damaashaad iyo hawlo badan baa mataqaana yaa socdo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ayaa mataqaana xilkaasi yaa hayo muuse hadda waxa way waa qof shacab waxa ma hayo adii asaas isku baatihin haddii musabixi uu ka galay dhibaato iyo wixii la mid ah maanta kala ku qabso waa wax saanad ah maanta musabixi ma hayo beeshii arab waxay leeyihiin ma dhici karaba in xisbigaanagi mataqaana horseed u meesha ka baxo oo Cabdullaahi Darawal uu xisbi aan noqdo ma dhici karto ama Soomaaliya uu kala tagi ama xisbigaana wala soo celin oo mataqaana waa lagu dhawaaqaya maxaa ku adkaaday meel wax laga soo qabto malaha ala kulli xaal kulli wala baratamay nin kasta waxa uu sameeyay wixii dadaalkiisa ah waa bixiyay dadaalkaas oo ku saabsan haday lacag noqon lahayd haday maskax noqon lahayd haday soo jiidasho dadka noqon lahayd waxay noqotaba shacabka loo bandhigay doorasho isku sidkan baa la qabtay dadna guul bay gaareen dadna way dhaceen xisbiyo badan baa ururada ma safnaa oo doorashada doonayay ururadii hal urur baa soo baxay saddexdii xisbi ee joogtayna mid baa dhacay mid kale lagu buuxiyay bas doorashada madaxweyne waxa soo baxay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro Muuse ugu dhacay haddii ururkiina wuxuu la mid yahay ururkii barwaaqo ee dhacay ururkii hilaac ee dhacay ururkii mataqaanay raja ee dhacay ururada tirada badan ee dhacay yuu ka mid ahaa marka Cabdullaahi Darawal fadli gooniya uu leeyahay ma jiro balse iska wada waxa soo dhaan xisbiga kulmiye yaa wuxuu ku baxsaday fara cididood ku baxsaday waayo wuxuu tagay darajada ugu hooseyso yuu tagay oo xisbinimo in uu daaqada ka baxo in yar buu mataqaana yuu ku sigtay taa marka ku tusinaysaa marka in doorashada meesha ka dhacday ay ahayd mid lagu cil qabay musabixi iyo xisbigiisa oo la doonayay in saaxada siyaasadda Soomaaliland in la dhaafiyo wax la gaari bay taana waxa keentay caburinta iyo carqaladeynta iyo dhibaatada iyo dadka wixii lagu hayay yaa dhashay ummadda sida hadii la kadiido oo la dhibaateeyo waxay dhashaa inay ficil sameeyaan ficilkan way sameeyeen dictator muxuu ahaa cornel dhisay waa baxeen labada cornel way israaceen cornel kaahin iyo musabixi way tageen dad khayr hadii marka oo markii ugu horeysay Somaliland ee khayr gacanta u gashay hadda marka waxa la rajeynayaa in wax badan isbedeli doono kullaba waan ognahay oo lagu hal qabsan doona oo waxa lagu kalifi doonaa in uu dhibaato badan sameeyo laakiin aan aqal bal u yarkaadiyo 2 sano sanad iyo harta gaaro wixii ka dambeeyay bal arrin asma wuxuu la soo baxo balan ku rajiyo saaxiibkay gooni iyo waliba cabaadkii iyo catawga tirada badan ee ka soo yeerayo taageerayaasha xisbiga kulmiye
وما سنتها بدأنا وهرتا كلمية جوينا سو غار لكن waxaan la yaabanahay in xisbigiisa oo soo baxan wali la yaabana sababtoo xisbigiisa saddex xisbi oo soo baxday mid ku hooseeyo noqday arinta kale meesha taal waxa waana la dhacay 5 milyan la siiyay commissionerka doorashooyinka dhibaato badan loo geystay waxyaabo badan ka soo yeeray dadka musabix taageersanaa xilkan oo wareegto oo Muuse muddo 7 sano haystay mandate ku haystana waa 5 sano 2 sano dheeraad sii joogo marka baashan oo wareegtaan waxa aaminsana marka in markaan ay tahay cadaalad ina dhacday oo hadda maanta inuu garxadiska ay madaxweyne ka noqdaan ay wax fiican ay ahayd sababtoo ay Soomaaliland marka hore looma simneen haddana waxa Muuse ninkan Cabdiraxmaan Ciro loogu fadhiyaa inuu ka fikiro MAU-ga Muuse bixi la sixday Ethiopia inuu ka fikiro SC qaatoma dagaalka la galay inuu dib markaas u joojiyo oo markaas maxaabiista la sacanad kaga xiran oo kala hadlay SC inuu wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland socodka matqaana la furo in ganacsiyada la furo oo markaas meelihii xirna la furo ayadana waa fursad kale oo Cabdiraxmaan Ciro hortaalo laakiin Ciro dhibaatada haysta waxay wuxuu aaminsan yahay in gabi ahaanba SC qaatoma ay kamid tahay Soomaaliland وسيدي بدلان بي او امسنتay in istiyaad ka wayta Puntland Puntland hadii dastuur ku qortay Puntland dastuur ku qortay Puntland ma rabto in Soomaaliland iyo ayaga u dhaxayso maamul Soomaaliland ma rabto in Puntland iyo ayaga Soomaaliland oo maamul u dhaxeeyo marka labada maamul xirwa in labada dhinac kala jiitaan istiqaadsuna waxa waaye hadii mar laakiin maanta saddex awood oo isleeg baasha talaabo ma hadda awood ahaan isleeg yahay laakiin waxa nimankan istiqaadsuma u dhiman kaliya in loo dhaw maamulkiina oo maamul rasmi ah dawladda ku dhawaaqdo marka qofka ku soo xadgudbaad waxa arkaysay عبد فيق ما كان هلا سفير رضا إنه أسوي جوابين عن محل هذا بدلان سومالنا تاجرنا إذا فيق حلك على قال هذا وين إسسينا أي تاجرتي فيق ترى هذا نيكا سوا سحسين هاي ولا كلا تجمع كوا دريم كرتا مركا نيكا أفيانكا بدلان وانين إسسي قاتم كسو جيدو ونيكا إسكان بدل أنت بدل إسكان حنقصنا إنه إنه أولس إسسي ما أرك كربا وحاول حلك سوي عشان هاي مركا حاصلة هاي إسسي قاتم هذه ما ملهان لو قدوا واقع وأنت عيدنا هستان وجيدا عدنا معرو حلو باهي أغلي سنو شقية ونسسي dagaal dambe isku qaadin oo yiraahdeen wixii dhacay dhacay xuduudaha isku furna ganacsiga SSC hadii loo furo maxal dhahay dekedii berbera way isticmaali karaan sababtoo ganacsi marka la fiiriyo canshuurta laga qaado ee Puntland ka qaaday tan Soomaaliland u raqiisaneed isku ma dhaweyn marka ay naftigoodana u jirto Xaasle Cabdiraxmaan Ciro isbedel degdeg u keeni doona hadii wadada Muusabix oo mar laakiin burbur adiga laakiin SSC ba ahayd oo inta badan difaaciisay laakiin hal mar ba 90 degree wareegtay Soomaaliland SSC aniga waxa ku taageeray gardarada lagu soo weeraray diidana aniga hadii maanta Soomaaliland SSC hadii inta baxdo Soomaaliland weerarto Soomaaliland la jira hadii laakiin Soomaaliland soo baxay SSC dhulkeeda ku soo weerarto SSC la jira sababtoo mar walba qof dhulkiisa lagu weeraray waa dulmane dhulkiisa in qofkan lagu soo weeraro dhulkaan qaadana ama sacan xoog ku xukuma ma ogil aniga marka hadii labadooda hadda dhaxadan ka laakiin qoladii duusho qolada kale ku duusho kuwa wax ku duulaya in ka soo horjeeda هذا وين الناس اللي جوان جعله انت سنتظر في البرنامج كان مقالة كلا يا ان شاء الله واذا فلقين دونه احنا مسكو سابسن مقال كان لو ذاك سحبت